laga yaabaa ninka Soomaaliyeed inuu caruuro u arko laakiin ninku gurigiisa markuu joogo waa ilmo weyn waa caruur halkan aad ku caruur ahaataa loogu talagalay sida daraadeed buu nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi Aisha intay dabada u soo yara baxeen buu yiri inakeen baratanne waxaasho inan yara waa la baratamay markaasay ka dheerays muddo la joogay maalin dambe oo dal safar la jeega buu yiri Aisha maanta waa baratamayna inakeen waa yara marmarsato may waa baratamayna buu yiri ina dhaqaaj waa la baratamay markaan Aisha waa yara cuslaat oo ina tiirayda fududayd ma aha sidii hore way iska bedeshay dabeetana wuu ka dheereeyay nabigu intuu ka dheereeyay buu waliba yiri tilka bitilka taati u turbu nabigu yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi midkeen baa arki kari lahaa isaga haweenaydiisu intay dabada u yara baxaan inay baratamaan yani waxa laga yaabaa inay suurada ninka Soomaaliga agtiisa taala inay tahay ninnima la'aan ama waxaan yani dhaqan nin weyn u dhaqmo waa dhaqan nabi anigu waxaan ka warramay waxaan idin mitaalka kama bixinayo cid kale tusaale kama bixinayo waa tusaale nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu alayhi oo ah bashariyada cidii loo soo diray inuu hago ilaahayba wuxuu abuuray kuwa jecel subhanahu wa ta'ala sida daraadeed ayuu nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi dhaqama ka muuqanaya muujinaya in guriga kani uu kalgacalkaasi ku dhisnaado sida awgeed buu Aisha maaliku tiri ilaahay rasuulkiisa hooyanka loo dhamidee kunya bay leeyeen ana kunyo Abdullah buu ugu yeedhay Imaam Ahmed xadiiskiisa ku tilmaamayo bal markuu u yeedhay uu tarxiimin jiray Aisha magaco bad la gooyo magaco in la tuuro in yani magacii haweentu aan la wada dhamayn nus yar inta la sheego inta kalena la iskaga tago kullu dalik waxay sheegaysaa luqadatan iyo qaabkan loo dhaqmayaa inuu yahay qaab mashaacirta la ilaalinayo Aisha inan yara ya xabashida ciyaaraysa waxay tiri mar rabtaa buu nabigu yiri qoladan ciyaaraysa ina daawato haabay ku tirtay tan nabigu isu taago dhinaciisa xaga dambeynta iska soo taagtay ayaan dhabanka u saaray bay leedahay oo maanta ma ka daashay markuu yiraahdaba may baan yiraahdaa anigoo rabay dadku inuu ogaado bay leedahay halka nabiga ka joogo ciyaarna ma rabina waxaan rabay bay leedahay soo nabigu igu jajaban yahay anagtiisa qiimaha ugu leeyahay in ay dadka kale ogaadaan ama dumar kale inay ogaadaan waxay tilmaamaysaa qadaayaadkani ruuxil marax in ay ku jirto inuu nabi Muhammad leeyahay khiyaarukum linisaa'i hadii tirmidee albani sahih ku tilmaamay waa idin ku fiicnay kuwa dumarkooda ugu fiican baabkan waxaad moodaa inaan tilmaamay misaalkii koowaad يعني مفتاح السعادة الزوجية وشركة خياركم نية قبل يسكو درصدين شركة الرأس مالك هانتيدا الرسمية هيستاني كو تجارين ينبين له الحب وهلكو كبل أبو مفتاحة كاني مفاتيح دواء الكبضا بيلاده هاي المامان ولما دي يكم ده التغاضي إن حساب تبضاني تزيد المسافات بعدا إن ليس دلقات وحياه بدن إيش اللي جرجو تكالجع القوة برناضو بحكوا سوكوبي يوم جوريجا مسلم كاي وجوري كالجعيل يسوور فيو بان كنا وجوري النحاريس إيوه معاملة في عنيد النصوص القرآن كي حديث وشيء إحسانية إيثارية وناقة صردان شرا عدالة الرحمة وح قرآن كشيء يودن ويوامش على الربو إن لغبر باريو وبتكبر شدا وسوكعية وبتكون جوري خيمة ده سوا يقعنا معنى الحب يدك كالجعل الله هينيو نحاريسته عدالة نمرسنانته عفوية تصامحة كل ذلك النصوص القرآن ترضى بدن لا شيء يسوي اللي يريدك kala kula dhaqan waxa awla ugu horeeya inaad kula dhaqantaan maxay taa nolosha wadaagtaan haweenna waxaan ku soo koobaya iyada nabi Muhammad wuxuu yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi gabadh baa u timid dabeetana danay lahayd baa ay ka wareysatay markay dhameysatay wuxuu ku yiri nin ma leedahay haabayt saysku tihiin buu yiri arigiisa saatahay waxaanu taag waaye mooyaane wuxuu u baahay uma meel yeelabay leedahay يعني wax kasta in raali galiyaan isku daya wuxuu nabigu yiri ku dadaal isaga janniya naartaadii buu nabigu yiri idan haweenayda ninka waxa caan ka ah takabbur bay dhahdaa iyo kibriya marka wuxuu isleeyahay armaad dad waxay yar samayso lagu yeesayaa hoos soo dhacday waa uqdatu naqs raga ku jirta bay dhahdaa cagsiga dumarka bay dhahaan waxa ka asala sulukiyaadka lagu yaqaan alcinaad madaxdaygo ninkan dabadabasani badan uu ka arko uu ku guumaysanayay aad wax iska dhicisid laakiin guriga dhabtahay waa guriga labada midna ool ninkuna markuu guriga joogo isla weyniyo dhan uu ilaabay haweentuna markay gurigeeda joogto taacada maanteed ay la timi ay haweenta waxa laga rabay xadku nabi Muhammad tilmaamay salawaatullaahi wa salaamu alayhi Muaad ibn Jabal markuu Shaam iyo Meelaan ka yimid uu arkay qolo boobabko
culimmadoodii wadaadadoodii u sujuudaysay uu nabiga yidhi adnaanu kuu sujuudno oo isku dayey wuxuu nabigu ku yidhi salawaatu waxaanad samaynaysaa waa maxaa qisadii buu u sheegay nabigu wuxuu ku yidhi haddaan bashar uun fari lahaa inuu bashar u sujuudo bini aadamuun haddaan odhan lahaa bini aadam sujuuddu waa maxay sujuuddu waa meesha muujisa inaad ogoshahay ilaahay inaad addoonkiisii tahay waa waxa muujiya jidhkaaga halka ugu qaalisan ee ugu sarraysay aad haysataa waa wejigaaga aad soo nadiifisay ka dhalaalisay markaad halkaad cagaha ku haysay saarta macnaheedu waa maxay waa ilaah waa isu kaa dhiibay waxaan ogolay inaan addoonkaagii ahay waa calaama lilistislaam waxaa la yidhi haddii bashar uun la odhan lahaa bashar adna madaxa dhulka u dhig haweenkaa la odhan lahaa ragiina u sujuuda idan haweenayduna cinaadka ha iska dayso ninkuna takaburka ha iska daayo guriguna kalgacalkii maalintii arooska laga olololaahaa lagu dhisayey maalinta xabaasha la qabanayo inuu sidii u jiraabaa loo baahayey ma gaboobe ha gaboojinina wallahu aclam billahi tawfiiq